السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داوديال كسو دوادا موضوعنا مانتا inta barnaamijka ugu dugalin inta channelka Barka 252 ku cusub tahay fadlan subscribe sar si ay ku soo gaaraan muuqaaladeena soo socda. Muuqaalkan share garay oo asxaabtaada la wadaag. Mahadsanidin. Garsooraha caanka ee Magulo Fiera ayaa lagu wadaa inuu caawa dhaxdhaxadin doono kulanka weyn ee u dhaxeeya kooxaha FC Barcelona iyo Slavia Praha. Sergio Roberto iyo Samuel Umtiti ayaa dhaawac ku seegaya kulanka caawa. Ogeysiiska ku saabsan ciyaarta caawa taariikhda 5 November 2019 kulanka Barcelona vs Slavia Praha tartanka UEFA Champions League saacada 3 saac oo 5 daqiiqo dhiman xilliga Geeska Afrika. Garoonka waa Nou Camp Stadium, shaxda macquulka ah oo ay kooxda Barcelona caawa ku wajahayso kooxda Slavia Praha. Goolhaye Marc-Andre ter Stegen, daafacyada Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clemente Lenglet, Jordi Alba, qadka dhexe Frank de Jong, Sergio Busquets, Arturo Melo, weerarka Carlos Perez, Lionel Messi iyo Antoine Griezmann. Soo saadaali kulanka weyn ee caawa u dhaxeeya kooxaha Barcelona vs Slavia Praha. Muuqaalkan waxaa idin soo jeedinayay anigoo ah Ismaaciil Saxafi. Fadlan channelka Barka 252 hadda ku cusub tahay subscribe sar si aad u aragtid muuqaalada aan halkan soo gelino. Inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo.